waa mahadsantihiin runtii soo dhaweynta diiran aad ii sameyseen dhammaan inta igu soo dhaweysay oo mas-uuliyiin ah garoonka igu soo dhaweeyay. booqashadaan booqasho iska degdeg ah si aan bal muraajaco badan ugu sameyno siyaasadaheena, isla markaana isbedelada hadda socda oo heer gobol iyo muxuu ahaa golayaasha deegaanka oo la rabo mar dhow in la dhiso, oo wasaaradda arrimaha gudaha runtii aad ay u wado, iyo saameynta loo baahan yahay in dadka deegaanka ah ama deegaankan asalka ah ay waxa weeyaan ugu yeelan lahayn awood. aanu rajeynayno isbedel muuqda inuu gobolkan waxawaaye ka dhici doono. isbedelkaasna hormuud in aan ka noqon doono. booqashada guud ahaan waa booqasho la tashi oo dhanka siyaasadda ah iyo dhanka bulshada ah. madaxda gobolkana ugu horeyn inaan waxa weeyaan la tashano, una sheegno muxuu ahaa waxa loo baahan yahay iyo sida loo baahan yahay inay u qabtaan. oo horey ayay u jirtay muxuu ahaa tabasho oo cadaalad daro ah, qaabka awood qaybsiga. ummadana haddee waxaa isku wado waa heshiiskana wuxuu yahay in awoodana la qaybsado, kheyraadkana la qaybsado. waa waxa keliya lagu wada joogi karo ay tahay. marka inaan bal khaladaadkii hore u dhacay inaanay soo laaban, una sheegno muxuu ahaa mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolkaba in bal cadaaladda waxa weeyaan xooga la saaro. haddii beled loo rabo ama ummad loo rabo inay horumarto, waxaa asaas u ah ama xukunkaba asaaskiisa uu yahay cadaaladda. arrinta labaad oo ah in maadaama muddo la kala maqnaa dadkii aan kasoo jeedinayna constituencygeena ahaa oo ama deegaan doorashadeena ahaana oo odayaashii ahna, inaan bal ziyaaradii hore iyo hadda inta udhexeyso waxa qabsoomay iyo waxa naga qaldan inaan dib isu muraajaceyno. wixii qaldanna la sox haduu ilaah iraado. marka qaladaadkaas iyada ahna waxa weeya dib loogu laabto, asbaabaha dhaliyana inaan waxawaaye ka wada hadalno. marka insha allahu tacaala waxaanu rajeynaynaa in siyaasadda guud ahaan muxuu ahaa gobolka iyo siyaasadda dadka aan matalnaba inay wax badan iska bedelaan ayaanu rajeynaynaa, oo wixii hore wax ka duwan inay soo baxaan. almost sanaday kusii dhawaanaysaa oo waxawaaye dhammaanayso. 3 sana inoo harsan, doorashaa la aadi doona noocay noqotaba, inaan u diyaar garowno wax kastoo kadis oo markaa imaan karaa laga sii digtoonaado, isla markaasna la ilaaliyo guud ahaan isku xirka iyo midnimada iyo wadajirka waxa weeyaan dadka deegaanka ah ama muxuu ahaa deegaanka aan kasoo jeedno in la ilaaliyo. arrimahaasa kuley ugu muhiimsan. mar labaad waxaan umahad celinayaa dhammaan inta mas-uuliyiinta isoo dhaweysay. wixii kaloo faahfaahin dheeraad ah ama natiijo ah ama results ahna waa markii insha allah kulamadaas aan u nimid ay waxa weeyaan inoo dhamaadaan hadduu ilah iraado. aada iyo aada runtii aada umahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.